wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muqbaahiya tusmo xarunta saddexda magaalada muqdisho. barnaamijka waa barnaamijka dhalinyarada oo aan ku eegno arrimo u gaar ah dhalinyarada. maantana waxaa marti waa Ibrahim Cabdulle Cabdi, waa mid ka mid ah ardayda wax ka bartay magaalada muqdisho weliba jaamacadaha, sidoo kaleetana ah xirfadle. waxaan jeclaa ugu horeyn inaan soo dhaweyno si wada jir ah Ibrahim kusoo dhawow muqbaahiya tusmo. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay Maxamed Ibrahim Salaad Farmaajo. waan ku dhawahay warbaahiyaha tusmo iyo barnaamijka dhalinyarada. dhammaan waxaan inta ka salaamayaa shaqaalaha TV-ga tusmo iyo adiga oo Farmaajo ah. mahadsantahay Ibrahim. qodobkeena doodana maanta aan ku eegi doono, aan ku falanqeyn doono wuxuu noqon doonaa sidee dhalinyarada ayaga nafsadooda ugu abuuri karaan shaqo abuur, ayagoona macnaha cid kale ka sugan sidee dhalinyarada naftooda u abuuri karaan, maxay ahayd shaqo nafsadooda ugu abuuri karaan. horey waxaan ugu sheegay Ibrahim inuu yahay xirfadle, isaga ayaan noo faahfaahin doona xirfadda uu qabtay iyo weliba dooda qodobkeena dooda iyo maanta sida uu arkay. Ibrahim, mar labaad kusoo dhawow. xirfadle inaad tahay aad noo sheegtay, sidoo kale xirfadda adiga aad qabatay inaad ku caan tahay iyo weliba maxay ahayd sababihii kuu dhaliyey waa arki doonaa. laakiin ugu horeyn waxaan rabnaa inaad faahfaahinaysiisid xirfadda nooca ay tahay adiga aad ku shaqaysay Ibrahim. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Ibrahim Salaad. saad wada ogsoonahyba dhammaan bulshooyinka ku dhaqan Soomaaliya waxay u badan yihiin dhalinyar. dhalinyartuna waa uwax dalka, waana xooga dalka. haddaysan dhalinyartu aysan helin wax ay qabtaan ama wax meelo ay ku mashquulaan, waxay xitaa caqabad ku noqon karaan nabadgelyada dalka. saa awgeed anigoo ahaan horta waxaan ahay arday waxna barta, marar qaarna ka shaqeeya dhankan internetka, baraha bulshada. badanaa baraha bulshadana wuxuu leeyahay faa'iido, wuxuuna leeyahay wax xun. haddii adiga ahaan shakhsiyantaada aad u isticmaashid xitaa waa ku shaqaysan kartaa. hadda sidaad ogsoonahay baraha bulshada waxaa kusoo batay YouTube wax la yiraahdo. YouTube-kaas wuxuu leeyahay dhinac ganacsi ahaan oo shaqo ahaan waa ku shaqaysan kartaa adigoo YouTube qaas ah furta. marka qaas YouTube-kaas furatid kadibna barnaamijyo badan aad dhiganaysaa, kadib riwaayadooyin waqti badan aad gelinaysaa iyo juhdi. saa la ajligeed dadka baraha bulshada badankood waxay u maleeyaan inuu xun yahay. zaa'id uma xuma, wax walbana adiga xumaysan kara. saad ogsoon tahay hadda xitaa waxaa socda barnaamij ah website-kaas waa lagu soo dirayaa, waa isdiiwaan gelinaysaa. markaa isdiiwaan gelisid xayeysiimo badanaa samaynaysaa. xayeysiintaas badanaa samaynaysid ayaa waxaa ku faa'iidaysaa lacag aan aqli gelaynin. dadkana uma maleeyaan, dadka badankood waa ay ka dhacsan yihiin. hadda dhalinyarta Soomaaliya saan wada ogsoonahay sanadkiiba waxaa jaamacadda dhameeya arday aan aqli gelaynin. ardaydu badankood markay jaamacadaha dhameeyaan waxay ku fikiraan intee shaqo ka raadsanaa, kuma fikiraan sidee adiga maadaama aad tahay qof wax soo bartay. ilaan qof wax bartay qof aan wax baran way kala duwan yihiin. qofka wax bartay wuxuu awood u leeyahay inuu asaga kaligiis lugiis isku istaajiyo, inuu asaga kaligiis wax abuurto. saa la ajligeed dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa in ayaga istusaan aqoonta ay leeyihiin, ayaga ay tashtaan, ayna lugooda isku istaajiyaan, ayna noqdaan dad wax hal abuur leh. Ibrahim boqolkiiba boqol amaasan tahay sida faahfaahinta leh naga siisay weliba shaqada adiga aad hal abuurka aad u leedahay. waxaan jeclaan lahaa oo sii duweydiya idan aan rabi lahaa sidaa sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba waxaa waaye 75 ayaa lagu qaadaa. soo bulshada Soomaaliyeed marka la 3 meelood 4 meelood 3 meel waa dhalinyaro. marka dhalinyarada intaas leegna waxaa sheegay soo kala jaamacad markay ka soo baxaan heerarkooda kala duwan ee jaamacadaha in aysan helin shaqo isla markiiba. marmarka qaarna sidaa sheegtay ay ku hamiyaan ama ay ku fikiraanba inay dadka iskaga dhoofaan, ayagoo marmarka qaar noloshooda halis geliyo sida in tahriib galaan oo badihii iyo waxyaalahaas dhiboob ku soo gaaro. inkastoo muddooyinka ugu dambeeyey bilihii lasoo dhaafay ay yarayd dadka weliba dhalinyarada oo tahriibka aado. haddana waxaad sheegtay in baraha bulshada ay leeyihiin khasaare iyo faa'iido, dhalinyaradana ay ka faa'iidaysan karaan. bal haddii aad faahfaahinaysid sidee mid ka mid ah aaladaha baraha bulshada ayaad magacooda soo qaado tiri YouTube-ka, marka sidee YouTube-kaasi lagu faa'iidaysan karaa xagga dhanka wanaaga iyo weliba anigana eegaynin dhanka maxay ahayd usoo laaban doonaa khasaarihiisa, bal faa'iidooyinkiisa iyo habka looga faa'iidaysan karaa. Maxamed Ibrahim, horta YouTube-ka lagu sheegayo waa meel laga furto shirkadda YouTube oo kale. Gmail-kaaga aad ka furanaysaa. markaa Gmail-kaaga ka furatid wuxuu ku aqbalayaa. markay ku aqbalaan ka bacdi waxaa samaynaysaa camera ama barnaamij ama telefoonkaaga oo kale aad barnaamij ku qabsanaysaa. waxaad raadinaysaa barnaamijyo ama muuqaalo
xiise geliya bulshooyinka Soomaaliyeed sida ayaga ahaan u soo jiito ama ka qosliyo hadda badanaa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay raadiyaan ciyaaro waxa zaid loo xiiseeyaa hadda waxa weeye ciyaaraha dhalinyarada badanaa waxay jecel yihiin ciyaarta dadka badankood waxay sameeyaan ciyaarihii dhacay iyo ciyaaraha soo socdo kale falanqeyn ka soo diyaariyaan muuqaal yar oo macaan ay soo diyaariyaan bacdi barta ay ku leeyihiin YouTube ay soo dhigtaan ka bacdi markay soo dhigaan dhalinyaro badan ka fiirsato dad badan oo fiirsato kadib shirkadda YouTube-ka waxaa jiro shuruudo ay kugu xirayso in ay ku bilowdo maadaama aad tahay qof shaqaysanaya oo macnaha dadka bulshooyinka soo jiitay waxay kugu xirayaan laba sharuud labada sharuud ah in saacad ay ka rabaan 1000 saacadood oo kale halka heerka subscribe-kana loo yaqaano ay ka rabaan 1000 subscribe oo kale ay ka rabaan subscribe oo kale waxay ka rabaan 1000 saacada oo lagu fiirsaday oo kale waxay ka rabaan 4000 saacadood kadib barnaamijkaas markay ku aqbalaan waxa jiro shirkadda YouTube-ka waxay leedahay Google AdSense wax la yiraahdo oo sameeyo xayeysiino Google AdSense-gaas xayeysiintaas ayaa waxaad u dirsanaysaa codsi markaad u dirsatid wuxuu ku leeyahay isdiiwaangelinta badanaa caqabadaha naga hor imaada waxay tahay malahan Soomaaliya marka isdiiwaangelinaysid daagil Soomaaliya wuxuu ku leeyahay Soomaaliya malahan postcard oo kale wuxuu ku weydiinaa address iyo postcard wax loo yaqaan address iyo postcard malahan Soomaaliya hadii guriga degan tahay addresskiisa adiga ahaan xitaa ma taqaanid salaajligeed addresskaas oo kale iyo wax markuu ku weydiiyo qof dibadda jiro ama qof Kenya noogu dhow Kenya kale qof jooga saaxiib ama ehel oo kale dhamaan hadaan nahay Soomaali qurbaha iyo xagga waa nala wada jiraa qof xagga ku jooga leedahay barnaamijkaas ii buuxi ciwaankiisa wixii ku soo sheega addresskiisa waa ku buuxsanaysaa kadib waxa ku banaan boos kale ah inaad ku xiratid mastercard kaas oo kale hadaadan awoodin dad kale igu xirdadid adiga barnaamijkaas guud ahaan waxa buuxiya dad kale shaqooyinkaas qabto xitaa oo lacag ku qaato oo Google AdSense ahaan anaga ku buuxinayno lacagtana si lagu dhahay lacag lagu bixiyaa oo ku buuxinayaan mar alla markay ku buuxiyaan kadib adiga ahaan muuqaal walba aad soo dhigtid markaas waxaad ku helaysaa faa'iido wixii markaas ka dambeeya waxa tahay qof YouTuber ah qof shaqaysan kara oo kaliya shaqadaadana waxay noqonaysaa in 24 saac aad ku fikirtid maxaa bulshooyintaas macnaha dadkaas qalqigaas kugu xiran maxaa ku soo jiidan kartaa maalinba maalin ka dambeeysa maxaa ugu qoslisiin kartaa maanta barnaamij riwaayada diyaarinay maanta barnaamij waxa diyaarinay shaatiro maanta barnaamij challenge aad diyaarinaysaa adiga dhan waxaa noqonaysaa qof 24 saac heegan u ah inaad u shaqaysid YouTube-kaas soo dhisma dhihi kara laakiin markii ruuxu dhalinyarada soo waa shuruudahaas uu soo buuxiyo ruuxu kaletana uu aamino dibadda jiro uu aaminay maxay ahayd waqtigaas saas u badan geliyay ruuxii kaleta hab nooca macnaha ruuxan maadaama uu yahay ruux dibadda jooga sida sheegto Soomaaliya aan laga heli karin shuruudaha mid kamid ah aan lagu buuxin karin ruuxaasi aad macnaha ay aamineen dhalinyaradaasi soo laga yaabo inay marmarka qaar la kulmaan caqabad kala kulmaan ay naftirkooda oo maxay ahayd qarashaadka shaqadiisu xayeysiintaasi ku soo bixayso kuma soo dhacayana account badanaa dadka sameeya oo hadiisan qofka barnaamijkaas wato uusan awoodin kaar ama uusan haysan bangi oo kale kaar mastercard-kaas oo kale qofka u furay kale wuxuu noqon karaa wuxuu raadsanaa qof ehelkiisa oo kale badanaa Soomaali waxaan raadinaa ehel qof adiga ku dhow hadaadan helin qof adiga ku dhow qofka kale aad aamintay waa saa sheegtay waa Maxamedow wax walba ka suurto waa bili aadan kaliya wuxuu hunguriyen karaa barnaamijkaaga ama lacagtan ku soo dhaceyso inuu ka cunana waa laga yaabaa waxaan jeclaa waqtina ku weydiiyay Ibrahim sidee loogu kalsoonaan karaa aaladan YouTube-ka mustaqbalka maadaama waxa laga yaabaa in sanadihii hore aysan jiri jirin isticmaalka aaladani haddii jiri jirtina aysan jiri jirin in looga faa'iideysto habkan hadda sheegtay dhaqaalaha bilib lagu abuuri karo hadda laga yaabo in muddo ka bacdi ay isbedesho marka inaa waqtigaaga gelisid waqti saas intaas la eeg aad gelisid oo ilaa 1000 saacadood wax yar maahan aad gelisid muuqaalo kala duwan aad gelisid waqti badan aad ku bixisid marka kalsooni intee la yaalo qabi karaa marka aaladan ay mustaqbalka dhow Ibrahim wallahi abu qof walbo bili aadan ah waxyaalahaas uu ku fikiraa aniga ahaanteyda xitaa hadda hamigeyga kuma jiro inaan ku sii fogaado barnaamijkan maxaa yeelay waa saa sheegtay awal ma uusan jirin barnaamijkan YouTube-ka hadda wuu soo aad iyo aad la wada isticmaalaa xitaa iska daaya hadda baraha bulshada markaa gashid waxaad ama WhatsApp oo kale waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo ku dhahayso ii subscribe karay ii soo dhawey saan waay hibil waay meeshaas waxa kaaga cadaanaysa in lagu wada daatay xitaa waxa dhici karta in shirkadda ay barnaamijkaas ogaato oo iska xirataba
way dhici kartaa taas markaas qasaare intee la yaa soo gaari kara marka dhalinyarada wallahi niyad zaid aad iyo aad u weyn qof walba hami u hayay oo barnaamijkaasi jeclaa inuu hami ama mustaqbal u ka gaaro way jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo caan ah hadda magacna ku leh oo kaliya laga bartay YouTube-ka hadda saad ogsoonahay YouTube-ka iyo TV-da hadda dadka badanaa waxay wada jecel yihiin YouTube-ka qof walba wuxuu diyaar u yahay 24 saac in YouTube-kaas galo uu ka raadiyo wax cusub ama qof caan ah wuxuu soo dhigay badanaa hadda saas oo kale badan tahay waxa tiri YouTube-ka iyo maxay ahayd hadda maxay ahayd TV-ga YouTube-ka la batay YouTube-kan waxyaalaha la soo dhigay Ibrahim ma noo xusi kartaa ma siyaasadda ma ganacsiga ma dhaqaalaha ma ciyaaraha sidaad hore ugu sheegtay ma waxyaalaha faaniga entertainment loo yaqaan xayeysiinta dadka waqtigii loo micnaha lagu madadaaliyo marka asaga YouTube-ku waxaan dhihi karnaa qayb noocaas oo gooni ayuu leeyahay kaliya YouTube waxaa ka faa'iideysan kara dadka maxay ahayd entertainment-iga sameeya madadaalada sameysoo sheegtay kuwa ciyaaraha ka shaqeeyaan ciyaaraha shaqeeyaan misana kuwa waxaan jeclaan lahaa faahfaahin inaad nagsiisid horta saa sheegtayba barnaamijka YouTube-ka qof walba markuu YouTube furto wuxuu ku soo caanbaxaa shay qaas ah haddaan mid ka mid ah xuso Maxamed Qadar waa wariye caan ah salaajligeed wuxuu ku caanbaxay inuu tabiyo ciyaaraha YouTube-ka hadda wuxuu noqday sida TV oo kale qofku markuu soo galo wuxuu raadinaa qof hibil qof YouTube hibil YouTuber hibil wuxuu ku caanbaxay baloon soo maaha kubadda cagta oo kale Maxamed Qadar qoranaa ilaa ninkan wuxuu raadinayo waa wararkii kubadda cagta meeshaas ku raadsanaa ninkii war raadinayana waxaa jira dad u qaas ah ama YouTuber walba wuxuu sameystay sida Maxamed Qadar ciyaaraha kale mid wuxuu sameystay shacti rabis maanta 12 inuu soo dhigo inuu dadka qosliyo mid wuxuu si qaas xoog u saaray asagana oo shaqadiisa kaliya ay tahay inuu war soo dhigo warkii hadda soo dhacay warkii maanta magaalada wixii ka dhacay maanta 12 asagana sida nin TV fadhiyo kale wuxuu ka shaqeeyaa kaliya inuu barnaamijkaas soo gudbiyo marka aad leedahay YouTube-ka wuxuu isku darsaday dhammaan wax walba oo looga baahnaa TV qof walba uu galaa wuxuu ka raadinaa kaliya wuxuu raadinaa magaciisa bis uu qoraa ka bacdi qofkii soo dhigo meesha ka daawanaa meeshaas asaga ka arkaa waxaan jeclahay dib inaan u soo laabto waxaa sababta ku dhalisay adiga inaa YouTube noqotid inaa macnaha adigoo waxbarashada ku jirtid dhanna gelina wax ka bartay dhanna shaqadan kale ka qabto maxay ahaayeen waxyaalihii kugu dhaliyay inaa noqotid adiga horta qof walba bini aadan ah wuxuu leeyahay hami u gooni ah sideeda banaanba qofka hadduu arday yahay hadduusan lahayn hami oo hogaamiya asaga qofkaasi wuxuu noqonayaa nin habaraac ah waxbarashadiisa xitaa ma tooseyso noloshiisa xitaa mustaqbalkiisa dambe ayatiinkiisa dambe xitaa uma roona salaajligeed anigu waxaan lahaa hami yaraantayda xitaa waxaan jeclaa in markaan soo koray inaan waxaan telefoonka wax ku duubo waxaan iska jeclaa in video iyo waxaan iska sameeyo kadib markaan koray alxamdulillaah dad badan oo iskuul asla soo dhiganay xitaa dad badan yaqaanaan oo adiga aad ka mid tahay xitaa ardayda wax isla soo baranay maalmaha taabuurka oo kale barnaamijka mar walba inaan taabuur ka soo muuqdo maanta 12 ardaydaas inaan barnaamij ku qoslaan barnaamij ay ayaga jecel yihiin inaan soo diyaariyo waa ku fikri jiray hamigaygu ahaa alxamdulillaah guusheedii waan gaaray maanta waxaan maanta ilaahay ugu mahad celinayaa hamigayga ilaahaygii ii fududeeyey maantana meeshii aan rabay bili inkastoo wax badan ay dhiban tahay laakiinse aan lugaha kula jiro hamigeygii iyo waxaan weligay rajeynayay aniga horta isma dhehaynin baraha bulshada YouTube wax laga soo baxaayo YouTube wuu jiray waagaas laakiin YouTube waa dhex fadhiisanaya ama YouTube waa laga arkaa weligay isma dhihi jirin laakiinse waxaan jeclaa in dadka aan ka hor muuqashada dadkaas iyo dadkaas inay idaabtaan aan aad u jeclaa alxamdulillaah haddana ilaahay mahadiis heerka aan rabo waan gaaray dad badanna magaaladii dad badan aan ku yeeshay taageero badan aan ku yeeshay xitaa adiga ahaan magacaaga ilaan qofka bini'aadanka wuxuu raadiyo waa sharaf iyo magac hadda macalinka iskuulka dadka u dhigo ama macalinka jaamacadda dhigo badanaa wuxuu ku jiraa rafaad ba aragtay waqtigiisa kama soo dib mari karo maanta 12 cashar soo diyaariyo rabaa rafaad ku jiraa asaga iyo ninka xafiiska ka shaqeeya oo managerka ah isku mid ma ahan managerka wuu imaanaa qabow fadhiyaa muraxad fadhiyaa ilaan macalinka fasal u galaa qorax kuleel lugayna laga yaabo xitaa inuusan haysan bishaas marka transport inay ka go'do lacag uu gaari ku raac inuu lugayaa laga yaabaa
laakiin sababta waxa uu u dhimanaya waxay tahay cilmigaas asaga ilaahay baray inuu gudbiyo uuna ku helo magac bari kadib soo meel maraya ardayda dad ka mid ah ka hor imaadaan waa la salaamaa waa la soo dhaweynaa sharaftaas keliya marka adiga waxaad leedahay sharaf ay u tahay dhalinyarada youtuberkii video youtubekii ardaydan youtubeka baraha bulshada ka midka ah isticmaalo inay bulshadooda u gudbinayaan waxyaalaha ayaga positiveka u wanaagsan marka waxaad leedahay barnaamijkaasna wuxuu youtuberka in dhalinyarada dhammaan ay ka wada shaqaystaan barnaamijkaas qof walba uu noqdo in asaga keliya shaqo uu abuurto waa barnaamijka daa aan kuu sheegayo kale maxaa yeelay ardayga hadduu jaamacad dhameeyo ma ahan inuu ku fikiro inuu xafiis fadhiisto adiga haddaad jaamacad dhammaysid ma ahan inaad toosa u socotid xafiis inaad ka bilaaweysid ilan dadka badankaad waxay ku fikiraan haddii aniga jaamacaddaan soo dhameeyey ma caqli miya inaan haddii kow ku laabto inaan shaqo yaryar wax qabto ma ahan qofka waa inuu ku fikiraa wax walba waxay leeyihiin basic ilan waxbarashada waxaad kasoo bilowday koowaad markaad foonfor dhamaynaysid iyo markaad koowaad ahayd isku aqlina maadan ahayn isku garaadna maadan ahayn markaa foonforka dhamaysid waxaa ku kala baxsan inaad tahay arday soo dhameeyey iskuul aqoontiisana ay tahay aqoon ku filan oo haddana jaamacad gali kara jaamacadda ka baxsan karo saa la ajligeed shaqada waxay leedahay aasaaska kale qofka inuu kasoo bilaabo inuu shaqadiisa shaqo ilaa lagu yiraahdaa shaqo adiga 3 bilood free camal ku shaqeey kaale meeshaan ka shaqeey markaas qofka inuu ka fiirinin dhanka xun ee uu ka fiiriyo dhankiisa wanaagsan iyo mustaqbalkiisa uu yiraahdo maadaama maanta anigaas horta intaan ma helay inta kale ayada iska imaanaysa uu ku bilaabo dhalinyarada markii ay waxbarashadooda dhameeyaan inuu shaqo kaligiis abuurto hadda youtube-ka oo kale qofka waana shakhsi ahaan asaa u leh maanta hadduusan barnaamij dhigin iyo hadduu barnaamij dhigo waa wax asaga ka go-an kadib wuxuu ogaanaa in dadkaas asaga ay u baahan yihiin maanta 12 wuxuu dhigaa barnaamijku diyaarina markii uu ogaado in asaga iyo dadkii ay isjeclaadeen ninka 24 saac markaas heegan wuxuu ahaana si bulshadiisa asaga ku xiran oo ku qanciyo markaas qof wuxuu noqonaa asagana talent leh kadibna bulshadaas bari kadib meel weyn ka fadhiisto marka sidee ruuxa youtuberka ah timekiisa uu qorsheyn karaa waxaa ogsoonahay in waqtiga hadda aad sheegaysay 1000 saacadood aysan wax yar ahayn si waqtigaas uu u buuxiyo 4 saacadood 4 saacadood wax yar maahan si waqtigaas uu u buuxiyo maalin kastan dadka macaamiishiisa ahayd kunka qafas subscribe-kiisa waa macaamiishaas inuu waqtiga ka sugayaan noloshiisa katana inuu micnaha u helan waqti u sugayo marka sidoo waqtigiisa ku maareyn karaa in micnaha labadii meel buu isku keeno waqtigiisa wuxuu ku maareyn karaa qofkaas inuu samaysto horta asaga jadwal nololeed kale markaan ku dhahayo ardayaan hadda anigoo kale kasoo qaad ardayaan ahay waxaan dhigtaa jaamacad waqtiga jaamacadda markaan kasoo baxo gelin waxaan leeyahay aan nasto iyo gelin aan barnaamij duubo iyo gelin aanba waxba qaban oo asxaabteeda iyo dhallinyaradeeda waqti aan la qaato saa laajrigeed qofka asaga hamigiisa hogaamiyo hamigaaga jadwalaa samaysanaysaa jadwalkaas markaad samaysatid saacad waxaad leedahay waqtigaas oo kale markaan kasoo baxo barnaamijkaas aan qabsanaa barnaamijkaas aad qabsanaysidna kama maarantid in aad heshid asxaab adiga bahashaas kaa caawiyo ilan keligaa 24 saac wax keligaa ma soo jeedin kartid waa inaad barnaamijka soo diyaarisid dad kula qabto waa inaad sii heshaa kabacdi waqtigaas iyo jadwalkaa diyaarinaya barnaamijkaas waqtigu ku habboon yahay jadwalaa u qore maalin hibil taariikh hibil saacad hibil barnaamijkaasaan qabsanaa way ku qoran tahay tanteefolkaaga fiirsanay maalinta barnaamijka uu soo dhawaado asxaabtaada barnaamijka wacane maalintaas barnaamijkaaga duubanaysa iyadoo diyaarsan kadibna saasaa bulshadaada ku qancinaysaa waxaan jeclahay in kaaga sii faa'iidayso sidoo kaleeto dabcan laga yaaba dad danaynayaan inay muuqaalkeena daawanayaan marka ruuxani markii ugu horeeyo uu bilaabayo aaladani youtube-ka oo kamid ah baraha bulshada si fudud saa sheegtay loogu abuuri karo ganacsi adigoo at the same time isla markiina wax baranaysid waxbarashadaada wato gurigaagana joogtid marka maxay iga baahan tahay awalan in aan noqdo ma inaan koox keensado ma inaan kaamira keensado hab nooc maxay iga baahan tahay horta kow inaan la imaado horta barnaamijkaas oo kale markaa bilaawaysid waxaa loo baahan yahay horta kow in adiga ahaan gmailkaaga youtube-ka lagu sheegayo waa gmailkaaga oo aad fadhiisiisay gmailkaaga waxaa samaynaysaa hadda qof walba oo caalamka ku nool uu leeyahay gmailkaas keliya aad fadhiisiinaysaa magaca gmailka ugu qoran aad bedelinay magacaas markaa bedelatid kadib waxaa sameynaya si horta intaadan gaarin inaad camera soo gadatid barnaamij dad aad samaysatid barnaamij aad qabatid waxaa ka horeyso in dadka aad isbartid horta
dadka saa isku bari kartaa dadka waxaa isku bari kartaa kow hadda badanaa baraha bulshada dadka badanaa la isku baro TikTok oo kale iyo baraha Facebook oo kale dadka badanaa horta kow ayagaa isoo caanbixiyo weji ahaan intaysan YouTube furanin ayagaa isoo caanbixiyo ilaan qof walba oo aadanaa ilaahay abuuray haybad ama wuxuu leeyahay wax u qaas ah ilaahay oo ku manaystay qofkaas inuu wixiisu soo bandhigo maanta 12 barnaamijkaas ama live Facebook dad badanaa ku arkay saas oo kale koodii Facebook live ay isku soo caanbixiyeen markii isbuuc ama laba bari ka bacdi la waaya dadkii u xiisayn fariimo messengerkiisa fariimo ka arkay fariimo markuu ka arkay kadib ciwaan u diray wuxuu yiri ciwaankaas YouTube-ka furta halkaas laga soo raadiyo kadib si toos ah YouTube-kiisa ugu soo dhaceen kadib markii meesha dadka kala qabsanaa marka badanaa waa inaad adiga adiga waa inaad caan bixisid dadka badanaa xitaa qaarkood TikTok oo kale iyo Instagram-ka barnaamijyadan aaladaha oo kale ay isku caan bixiyaan markii shactira waxay soo dhigayaan qofka markuu arko wuxuu asaga muuqaal asaga uu soo dhigay qofka la dhigtay qofkaas wuxuu ogaanaa inuu bulshada ku dhex leeyahay qiim kadib uu dadkii soo dhawaysanaa wuxuu leeyahay hadda kadib halkaas laga helo saasa si toos ah dadka hadhow halkaas kala soo hagaagaya ka bacay shaqadiisa meesha ka bilaabana mid ka mid waaye sad noo sheegtay in ugu horaan ruuxa markii uu asaga dadka isoo in asaga ku isbaro maxaa kale oo looga baahnaan karaa marka kadib markii dadka uu isbaro kadib ay noqonay in qalab uu soo gato inuu yeesho fanis asaga ama asxaab asaga oo qaas ah oo barnaamijkaas 24 saac kala qayb qaato haduusan helin dad barnaamijkaas asaga ka caabiyo oo ama shakhsi ahaantiisa way noqon kartaa shakhsi ahaantiisa qof shaqeysto laakiin badanaa waxay ku noqonayaan caqabad asaga ka hor imaata ayay maanta 12 barnaamij ma soo jeedin kartid bili aadana tahay waa xanuunsan kartaa si kala noqon kartaa ama barnaamijka adiga kaliya aad soo jeedinaysid waxa kugu noqon kartaa in adiga dadkaas wax u gaar ah ayaga bas u sameeysid oo adiga kaliya aad sameeysan kartid taas oo kale way noqon kartaa waa sidoo kale waxaan jeclaa in aan idinku weydiiyo Ibrahim ruuxa ama YouTuber-ka ah ama tusaale adiga meesha fadhida adiga ma matalisa adiga garsoor adiga macna matalay jawaab cilin noocay ayaad kala kulantay bulshada oo kusoo markay aad wax soo dhigtid si kastoo ay Soomaali u leeyihiin waxaad la kulmi kartaa jawaab cilin ama reactions waxa la dhahaa kala duwan dadka kugu dhiirigelin karaan dadna way kugu amaani karaan dadna waxa weeyaan kugu daleecin karaan marka adiga reactionada aad la kulantay jawaab cilimaha la kulantay markii aad kusoo biireysay ilaa waqti xalalkan aad taagan tahay marka jawaab cilin noocan la kulantay wallahi caqabado badan kaaga hor imaanayso markaad barnaamijkaas koodii hore aad ku wada cusub tahay si toos ugu cusub tahay dad badan xitaa markay waji ahaan ama toos ama ku yaqaano kale barnaamijkaas wada camal marka dhahdaan barnaamijkaas aan soo dhigay ma aragtay oo kale ama barnaamijkaas xitaa haduu baraha bulshada ka arko ka hor maad wuxuu ku leeyahay nin aad maxaa ma waalatay maxaa fara maxaa ku kaliya cunugeeda tahay waxbarashada ku jirta waxbarashadaada wado ku eka waxbarashadaada ama qof aba community-ga muuqaalka dhexdiisa aba community lagaaga soo bixina waxa lagu leeyahay waxaan soo dhigtay nama faacayana dismoral adiga waxa shay eraya hadala qaar oo dismoral ku ridaayo kala arkaysa waxa ku leeyahay waxa soo dhigtay baa fiicna nama faacayana labadaba igu wada camal iga jooji muuqaalkan oo kale adiga ahaan hadaadan hami lahayn qofka mogta hamigiisa hogaamiyo wax walba caqabad walba ka hor imaato hamigaaga wuxuu ku leeyahay ka bood soo soco ilaan xaq kaaga sii ifaya dadkan caqabada ma arkayso sama saal ajligeed hamigaaga ku hogaamiyo hadaan hami lahayn oo caqabado badan ka hor imaadaan dad waxa ku qasbay laba bari inaa wadid ma saddexaad adniyo meeshii wallahi darada igu dambeysay barnaamijkii oo kale maxaa iskaga dhaaftay dadka qaarna way ku weydiinayaan sababta iskaga dhaaftay qaarna waraab iska dhaaftaa ama iska dhaaf balaayo waa awal baa faa'iido kuma qabine saas oo kale ku leeyihiin waxaan jeclaa inaan kaasi faa'iido jawaab cilmiha dadka ay soo siinayeen mid kugu darnida ama sana kugu yaab badnaa been hadii aad nala qabsan kartid wallahi hada su'aashaas ay ugu gaaday dadka badankood wax ugu la yaab badneed muuqaal aan duubay markaas YouTube kala u shaqeynayay muuqaalkaasna barnaamij jacayl camal oo ahaa barnaamijkaas oo kale waxa igu la yaab badnaa qeyralaasiya wiila saaxiibanahay habeen anoo meel fadhiyo kale ugu imaaday muuqaalkii soo arkay ma ogeyn aniga muuqaalkii soo arkay soo ag fadhiistay wuxuu yiri dadka qaarkood maba isyasayaanbo ya markaas aan soo fiiriyay waxaan dhankan sheeko kale muuqata dad uu la fadhiyay ilaan aniga ugu dhaga hadlay ma ogeyn aniga
saana u fiiriyey shubaan ka dhaxsi ninkaan adiga kaama hadlaya iska dhaaf bas markaasaa haddana u ku celiyey dadka qaarkood maba isyasahayaanba see u joogeen maanta waxay bilaabeen jaceyl weji jaceyl ku jilaa maba lahane bas mid ag fadhiya wuxuu yidhi niyow adi sheekada anagana nooma wadide maxaa ka wadaa camal war xunkaanaa la hadlayaa u dheh oo gadaasheeda fadhiya oo carisiyaas ninka waaba xanaaqsan yahay ilaan aniga waaba markaan yaabay aa u jeestay wiilka xayir walaala maxaa kaa xanaajiyey maxaan kugu sameeyey maya wax iguma sameynina hee macnaha barnaamijkaas qofka la sameeyey ay xiriir wadaageen saaxiibo ahaayeen barnaamijka ruuxa aad la sameeyey barnaamijka riwaayadii jaceylka qofka la sameeyey ay asxaab ahaayeen bas qofkii ii xanaaqsan ilaan ma ogi ayagana waa isoo dagaaleen ninkaana anu toos iisoo abaaray ilaan ninkaan dagaal waxwiikaas usoo diyaariyey bas ani markii barnaamijka arkay ninkaan inuu xanaaqay barnaamijkaa weydiiyey waa markii dambe gees qof wiil kale saaxiibkiisa gees ila baxay uu ii sheegay ninka arrintaas kugu haystaa waa wiilkii aan u tagay waa raaligeliyey waxaan ani barnaamijkaas aniga ma ogeyn ani dadaan u shaqeeya waaye markaas shaqaalan ahaa youtube kalan u shaqeynayay waa u sheegay waxaan dhahay dadkaas barnaamijkaas wateen anigana barnaamijkii waan jilay niyahow karan raali noqo dib dambana uma dhaceyso ibraahim su-aashaas ayaan su-aalka taafkaha kasii dhex faa'iidaystay dadka wada jila rawaayadaha sida aad sheegtaa deertana weliba youtuberada ku kala kiciso oo micnahada weliba si wanaagsan u jiraan waxay u badan yihiin rag iyo dumar raggaas iyo dumarkaas waxaa laga yaabaa dhammaan in dad ajanibi ay kala yihiin meelaha kala dheer inkastoo aysan jiraan dad xaasas qaba iyo weliba dad walaala ay u badan yihiin u gafine dadkaasi badan waxaa laga yaabaa in laga dhexyo dadaan micnaha dadkaasi saa sheegtay dad kale xiriir la lahaan karaa sida adiga qoosata camal marka soo lama dhihi karo youtube-kii naftirkiisa wuxuu leeyahay caqabado bulshada dhexdeeda waa qasab maxaa yeelay qofkan waxa uu sameynayo waa muuqaalka qofka sameynayana laba miduu noqonaa kow horta waaliduu leeyahay eheluna leeyahay laakiinse dadka ayaa kala duwan dadka waxay ku kala duwan yihiin anigoo kale hadda waan jeclahay 24 saac inaan barnaamijka youtube ka dhex muuqdo inaan barnaamij sameeyo ilaan waa hamigayga soo maaha qof anigoo kale aa la helaa asagana hamigiis jecel ahna dumar iyada danta waxay ku qasbayeen adiga kula soo xiriirto barnaamijka aan kula sameeya ku tiraahdo adiga qofkii adigoo barnaamijka caadi qof walaaltinimo usoo dhaweysay barnaamijkii isla sameyseen adiga xumaanna kaama ahayn keliya waxay ka ahayd qofkan asagana hamiyuu leeyahay sidaasoo kale waa horumar rabo inuu gaaro soo dhaweey bas way jiraan arrinta noocaas oo kale caqabadaas oo kalena way dhacdaa laakiinse badanaa waxay u badan yihiin dad jecel inay horumar sameeyaan ma laga yaabo marka dad ay ku kala tagaan lamaana ahaa masqabay misana xiriirka dhexitaanaa misana walaalaba ha ahaadeene aaladan darteed u kala tagaan in laga yaabo ina dhacaan marka qaar wallaahi may ani weli ma arkin laakiin badanaa riwaayado iyo barnaamijkaas oo kale riwaayad ahaan waa laga jiraa laakiin wax xaqiiq dhacay weli ani ahaan isheeda maan saarin laakiinse in riwaayad ahaan barnaamijkaas laga jiro way jirtaa oo laba qof oo kale xiriirka dhexeeyey qof mid ka mid iyadoo riwaayad barnaamijkaas la jirayso kale ku xanaaqday oo kale waxaas oo kale way jiraan laakiin abadan aniga ahaan ma arkin weliga ma armaan caqabadaas waxaan jeclahay waqti inaan ku weydiiyo waxaan ogsoonahay soomaalida inay leeyihiin dhaqan adag marka loo barbar dhigo waxyaalaha qaar ee social media aad ku arkaysin ay waxyaala lid ku yihiin aad ku arki kartid marka soo lasma dhihi karo social mediaha weliba aaladan youtube-ka aad micnaha u leedahay experiencegaada u leedahay khibrada adiga u leedahay oo mid kamid hal abuuradaada aad ku shaqaysatid gooni waxyaalahaada ugu shaqaysatid soo lasma dhihi karo waxay kamid yihiin amasana tusaale u yihiin amasana door muuqdaba ka qaataan bedelka ku dhaco dhaqankii hindihii soomaali soo jireenka wallaahi neehow taas waa la dhihi karaa maxaa yeelay anaga haddaan nahay muslimiin waxaan leenahay diin barnaamijyadaas oo kalena way jiraan laakiinse qofkan markuu sameynaya barnaamij noocaas oo kale badanaa waxyaalaha qaar oo kale oo ay qofka dumarka oo kale ay kusoo labisanayso barnaamijkaas ay la sameynayso oo kale diinteena ma ogolo taas oo kale waa bedel dhaqankeena laakiinse ani ahaan waxaan isleeyahay waa hor dhanka gees ahaan dhan maanta wax walba wuxuu leeyahay wanaag iyo xumaan haddii dhanka wanaagga laga fiiriyo waa shay bulshadii ama dhalinyartii soo kacaysay jiilkii soo kacayay
ka reebay inay tahriibaan arkayna inay dalkooda wax ku jeli karaan arkayna in dalkooda ay ku shaqaysan karaan saas ahaanaan jeclahay inay tahay dhankaas haddii loo fiiriyo marka laga tago isbedelkaasi ku yimaaday iyo weliba tii aad horey noo sheegtay oo adiga ku qabsatay ma jiraan caqabado kalete oo uu leeyahay asaga aaladan isticmaalka aaladan youtube caqabadaha ugu xun uu leeyahay dhanka negativeka caqabad qaar uu leeyahay oo zaid u badnayn laakiin qofka shaksiyan asaga ka shaqeynayo badanaa wuxuu bixiyaa juhdi dhanka maskaxda maxaa yeelay barnaamijkan aad samaynaysid waxaa maanta 12 ka fikiraya xitaa haddaa barnaamij dhigtid oo barnaamij aad soo duubta dhige barnaamij markaa dhigtid waxaa ka fikiraya muuqaalka xigo noocee ka dhige qaabkee u qabane intee ku qabane su-aalahaasa isweydiine marka noocee ka dhige markaa jawaabteeda heshid haddana intee meeshii haddana raadine goobtii barnaamijkaas aad ku jiri lahayd ilan qaabkii riwaayad camal a hesho soo ma riwaayadda maxay qusaysaa riwaayad tahriibay qusaysaa tahriib intee u baahana haddana meeshii lagu jiri lahaa inaad sii raadis waxay noqonaya haddana markii inaad magaalo meel ka baxsan ama meel oo saxara oo kale xeebaha oo kale inaad raadisid wakti iyo maskax iyo juhdi badanaa la geliyaa ibrahimow waxaan jeclahay gabagabadii gunaanadka barnaamijkaan maraynaa inaan mar labaad ku jila oon ku idhaahdo inta aad ku jirtay aaladan isticmaalka aaladan youtube ma jiraan adi caqabada aad la kulantaada ibrahina caqabadtii hadday aan kuu sheegayay oo barnaamijkaasi ugu dhacday ka dambe caqabad kale maan arkin alxamdulilah intayda kalena waa ku faraxsanaa caqabad kale oo isleeyahay ilaa haddana wax walbo iga hor imaadana waxaan jeclahay inaan ka talaabsado maxaa yeelay waxaan ahay qof hami u leh in barnaamijkan heer sare inuu ka gaaro insha allah waxaa la dhihi karaa in badana dadkas dhalinyarada weliba markay isku dayayaan isticmaalka aaladan sidaad sheegtay youtube aad ugu dhawaajisay waalidiinta caqabado kala kulmaan oo ay weliba saaxiibada iyo dadka saaxiibada yihiin oo micnaha niyajab ay micnaha ku keenaan indhahan maxay tahay waxa maanta ugu soo aragnay oo xitaa markay baraha bulshada kaasoo arkaan xitaa adoo samaynaysan bay ku arkeen laakiin markay baraha bulshada kaasoo arkaan ee ku yimaan ku dhaha maanta waad waaratay waxaad micnaha samaynaysa wax kumal maaha marka dhalinyaradaas ayagana sidee micnaha ugu gudbi karaan niyajabkaas u ku yimaada ibrahim wallahi waxay ugu gudbi karaan inay horta ayaga ahaan waalidkooda ay ka dhaadhiciyaan barnaamijkan ay wadaan inaysan ahayn barnaamij xun aysan ula damacsaneen dhanka xun ilan waalidka wuxuu ka qaylinaa waxay tahay barnaamijkan waxay keliya fikirkooda ama ayaga ahaan ka dhaadhacsan inay tahay youtube iyo barnaamijkan la galay inay wax xun tahay ilan waalidiinta qaarkood isku mid ma ahan waxaa la rabaa wiilka inuu asaga waalidkiisa la fadhiisto uu ka dhaadhiciyo barnaamijka inuu barnaamij dhanka wanaag uu ku sameynayo wax fiican hooyo inaa dadka wax inaa ugudbiyaa rabaa saa inaa noqdaa rabaa uu waalidkii ka dhaadhiciyo la fadhiisto ilan hooyo waa jir wax dhalay waaye way kaa naxaysaa haddaa la fadhiisatid barnaamijka si saxan aad ugu dhaadhiciso saas way ugu guuleysan karaan wayna ugu gudbi karaan barnaamijkaas ilan waalid wuxuu leeyahay in la tashto oo yani barnaamijkaasaan wadaa barnaamijkaasna xumaanna uma wado saanaan u wadaa waalidka markaas two answers unbaa sugaysaa markaas in lagu ogolaado oo markaas lagu yidhaahdo garabkaaga alla ha galo ama in lagu diido lagu yidhaahdo wax inta ka raadinaysid anigaa ku siinayo hooyo macaan garabkaaga alla ha gala magaalada waxbarashadaada ii wado marka waxaa leedahay waa in kowdii ay soo qanciyaan dhalinyarada waalidka kow barnaamijka waalidka in laga dhaadhiciyo ilan waalidka wax ogeyn haddaa samaysid wax walba ugu dhici karaan waxaa qasab in hooyo aad la tashato ama waalidka barnaamijkaaga kadibna aad ku dhaqaaqsiso hawshaada sidoo kaleto waxaa ogsoonahay in badanaa muuqaalada ay soo geliyaan ragga iyo dumarka badanaa ay daawasho badan yihiin dhanka dumarka waxaa taas usoo beenaysa ibrahim micnaha muuqaalka inkastoo ay jiraan micnaha nin kastoo waa sidaa sheegtay oo micnaha asaga ku xirantaha dadaalka iyo kartida uu daawadayaashiisii weliba macaamiishiisa uu u qancin lahaa si magacana ugu sii yeelan lahaa ayadoo saasay jirtaa aadana dadka qaar micnaha ku codaan ay yidhaahdaan in micnaha muuqaalada ay kugula jiraan amasena ay gooni u yihiin amasena ay soo geliyaan dumar ay ka daawasho badan yihiin ama lagu daawasho badan yahay dumar ka ragga marka la fiiriyo dumarka micnaha daawasho badan maxamedow taas waxaa la is dhihi karaa waxaa keeni karo genius ahaan micnaha dareenka maxaa yeelay hadda adiga haddii muuqaal youtube lasoo dhigay laba muuqaal midna wiil uu hor fadhiya aragtid iyo midna gabar
toos waxaa ugu dhufanaysaa kan gabadha maxaa sabab sababtaas waxaa keenayo badanaa dumarku waxay leeyihiin soo jiidasho xagga rabbaani ah ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay ileen hadda badanaa barnaamijyada aniga aan soo dhigo youtube-kayga uma badna gabar saa la ajligeed dadka qaarkood zaa'id iima xiiseeyaan maxaa yeelay wadada xitaa su-aashaas hadda adiga i weydiisay life ahaan ii weydiiyey idhahay Ibrahim intaan youtube kugu arkayna adiga iyo dhalinyar adiga iyo weli garabkaaga kuma arkin maxaa aaway hal qof xitaa meesha ma ku kala kicishid camal wallahi insha Allah waa taasna qof hadduu rabo inuu asaga barnaamijkiisa macnaha hamigiisa uu horumariyo qof walba ani qof inaan gabar macnaha barnaamijkaas qasab uguma soo daraayo qofka bini'aadanka muuqda qof walba asaa hami leh dad way jiraan gabdho badan oo youtuber la way jiraan ayaga youtube-kooda way kugu cazumi karaan waa u tagi kartaa hadda baraha bulshada kale hadda xamar waxaa caanka ah waa artay fartuun balbalaar fartuun waxa kale kumaysan caan bixin dhalinyarada dhan jeclaatay waxay kusoo jiidatay wax hal mar ayaga indhahooda soo jiito waxayna kusoo caan baxday hees ay qaaday hees ugu horeysay qaaday waana wax dadka dhammaan wada sugayay marka waxaa leedahay oo adiga hadeertaan tusaalaan ku socono marka maxaa ka damacsantaa ma xaqooda miyaadan siinaynin waa siduu ninka live-ta kugu weydiiyey marka ma ku qorshaysantahay waa ii qorshaysan tahay insha Allah hor istaagaa jira oo may wax sabab iga hor istaaga ma jiro insha Allah waa ii qorshaysan tahay barnaamijkaas uu ii soo socdaa weli riwaayado dadka xiisa geliyaan soo wadaa ilaa 4 riwaayadood oo qaralas iyo abwaan saaxiibka uu ila diyaarinayo insha Allah riwaayadaasna waa ku jiri doontaa wayna daawan doonaan asxaabta gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclaan lahaa hal daqiiqa ama wax ka yar inaan ku siiyo si aad daawadayaasheeni ayagana aad micnaha taladooda kugu aadana maadaama qodobkeena maanta ama ka doodeynin uu ahaa sidee dhalinyarada ayaga waxa gooni u ahaa u abuuran karaan shaqo gooni ayaga u abuuran karaan ayagoon ruuxna ka sugin marka wax ka yar hal daqiiqa ayaan jeclaan inaan ku siiyo okay maadaama barnaamijkii gabagabo uu yahay siduu ii sheegay walaalkay maxamed ibraahim salaad dhammaan dhalinyarta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad leedihiin janis waxaad haysataan awood qaas idin ah oo ah maskax ilaahay subxaana watacaala idin siiyey waxaa kaloo idin sii dheer cilmi qofka hadduu mar maskaxdii iyo cilmi ilaahay subxaana watacaala iskugu daray uma baahno inuu qof shaqo ka raadsado uma baahno inuu qof hoos tago warqad uu geysto walaalow shaqo isiisaan isii kaliya hadda kasoo qaad 4 qof oo kale ama 3 qof oo kale shaqo soo wada dhameystay saddexdaas oo waxbarasho soo wada dhameysay andaye sorry waxbarasho soo wada dhameystay saddexdaas qof mid wuxuu hayaa fikradii mid wuxuu hayaa fikradda ninkan uu keenay maalgelintii la maalgelin lahaa midna wuxuu hayaa barnaamijkaas siduu ku dhaqaaqi lahaa hadday saddexdaas dad ayaga iskugu imaadaan waxay samaysan karaan company ayaga u khaas ah magacoodana ku baxaya sahal ajligeed waxay noqon karaan dad ayaga is-hormariya uma baahna inay dad hoos sugaan uma baahna inay dawlad shaqo ka doontaan ayagaa dawlad isku ah ayagaa dal isku ah ayagaa is-hormari karo waa maasan tahay Ibrahim waxaa daawadayaal dhammaan intaas inooga dhan barnaamijkii dhalinyarada ama galabta ama maanta waan ku eegaynay sidee dhalinyarada ku abuuran karaan shaqo ayaga gooni u ah oo ayaga ay abuurteen maalkooda iyo maskaxdooda ka timid barnaamijka waxaan la socodsiinay aniga maxamed ibraahim salaad farmaajo waxaana marti inoogu ahaa ibraahim cabdulle cabdi inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa aniga oo sidaas iyo nabadgelyo